oo hal dalaaq xooga sidaas laga furtay 24 saac kadibna aan rajacto dhahay rajactuna diinta islaamka ayaa banaynayso diinta islaamku waxay dhigaysaa gabadha in 3 dalaaq lagu qabo haddii hal lagu furo 2 ay taalo 3 bil cududana ay soo qaadanayso 3 bilna wax xiriir ah ama shukaansi ay sameyn karin sida diinta islaamka ay dhigayso aniga sida aan hore u sheegay qasab iyo handadaad dheer la sheegtay kadib ayaa xaaskeygi iyadoo gogol lagu jiro oo dad madax ah iyo mas'uuliyiintii beesha ay fadhiyaan la isku day in gogosha dhexdeeda lagu handada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قيمة يقدر انتو نقوم الضنو ملك استاذ دافها عالمك كغنو شايسك استاذ يدعونا يسوى وعنو ونعكسن هاتي تقول انك اقول يتصوى بوضو جننك وحان كاعد سنينا تسكريب تيسار تسينا شير قريسو لايقتنات سارتو مركز نحور كاذا اللي قصوه بقوتوني فضلها المامينة كومنتي عافي ما تغبا ويحي فكر كايا الحق هو سيقول استوى وذاكتو ayayo wixii cusub iga warayso waxaad maqashana ka fiirso saacadii la soo dhaafay waxa baraha bulshada ku kulantay si weyn u haysay kala tagay walaba isqabsiga maslaxa iyo Catoshire ayaa afka furtay fiidiyoona soo duubay gabi ahaanba sheegay in maslaxo xoog lagaga furay wasdiisa waxa hadalka u dhigay sida hordhaca ku soo daaragteen ama fiidiyowgan ka soo diyaarinay isaga oo ka hadlaya arrinta waxa uu yiri waxa handadaad iyo weliba xoog lagaga furay xaaskayga maslaxo aanan raali ka ahayn haddana waan qabaa ayuu yiri diintuna waxa ay qabtaa haddii ay jirto wax xooga oo lagu furayo gabadha inaanay furmin haddaba sida hadalka u dhigay wuxuu rajactu baan yiri markii xooga lagaga furayay hal dalaaqana aan waa furay kaasina waxa uu ahaa mid xoog lagaga furayay balse aanu ahayn mid ku talagala iyo khilaaf iyo waxyaabo kale oo anaga la soo dhaxgal sida isagu hadalka u dhigay waxa uu sheegay haba yaraatay inaanay jirin waxyaabaha propagandada ee Facebook iyo waliba YouTube-da la dhex wareegaya ee ah inaanu isku qabsanay qarashada ama waxyaabo kale ama fiidiyo xun lagu yiri duub haddaba waxa uu sheegay inaanay waxaas saliya raatoona lahayn waxna aanay ka jirin ay tahay ku tiri guteen la dhex wareegaya baraha bulshada dadkana nagu xidhana lagu jahabaabinaya haddaba waxa uu sheegay in handadaadi iyo xoog lagaga furay xaaskiisa balse aanay ahayn wax bareera haddaba waa xaaskaygii buu yiri waana soo ceshanayaa diintuna waxa ay qabtaa uu yiri haddii uu hadalka u dhigay haddii uu qofku xoog lagaga furay gabadhiisa inaanay ka furmin wasida isagu hadalka u dhigay haddaba dadyo badan oo baraha bulshada isweydiinayeen waxyaabaha ka runta ama waxyaabaha ka beenta maslaxa ayaa dhankeeda iyadu sheegtay gabi ahaanba inuu furay oo aanay hadda ahayn xaaskiisa balse ay tahay gabadh madax bannaan oo garooba sida iyadu hadalka u dhigtay haddaba dadyo badan oo isweydiinaya su'aalaha ayaa ah qaar jahawaabsan oo meel ay u kaxeeyaan arrintan garan la haddaba waxa jira dadyo badan xoogaal oo waliba ugu dhowdhow oo ku jira halkan wax ka codsanayna commentiga nagula soo wadaagto wixii aad ka ogtahay sheekadaas haddaba dadyo badan ayaa ku jaawararsan sida ay wax u dhacaan iyo sida ay wax u socdaan haddaba labada qof yaa run sheegaya si been sheegay haddaba Catoshire ayaa dhankiisa sheegay gabi ahaanba inaanay jirin furun dhabax oo isaga iyo xaaskiisa kala dhaxmaray balse ay handadaadi iyo weliba xoog lagaga furay halkaas oo beesha wasoo carabaabay beesha ay ka soo jeedo maslaxo ay sheegeen uu sheegay isaguna inay qasab kaga fureen haddaba ma jirto buu yiri sabab kale oo aanu kala tagnaa aniga iyo xaaskayga balse sababta jirta ayaa in xoog iyo weliba handadaadi iyo weliba hanjabaado lagaga furay iyadoo ay taagan yihiin beesha ay ka soo jeedo wasida isagu hadalka u dhigay maslaxo halkaas oo lagaga furay hal dalaaqana aan ku yeeriyay balse aan raali ka ahayn haddaba barnaamijka waxaan ila daadiinayaan aniga muumina waxaan ka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo saarka dambe